السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD Drafting course. Lecture-ka maanta aan fiiri doono wuxuu noqon doonaa lecture 8 oo ka hadli doona using stretch, scale and offset tools. Saddexdan tool oo aad muhiim u ah qofka sawiraayo ama wax inuu ku sawiro rabo AutoCAD muhiim ayuu yihiin saddexdan xababa inuu yaqaano. So meeshan waxaan noogu diyaarsan objectives qaar kamid ah ayaan noogu diyaarsan si hawsheena ay noogu fududaato. Okay, marka ugu horreeya waxaan isla arkaynaa stretch marka qaybtan uu ku dhex jiraa modify-ga ayuu kamid yahay waana kuwa hoose kan ugu horeeya waa stretch ku qoran. Okay, waa yacni sawirka meeshan kaaga muuqda arkaysid markaa saarno soo baxayo yacni stretch meeshaas ka fahmay macnaha shayga asoo yar ama asoo gaaban waxa sameynaa waa kala bixinay waa dheereynay macnaha kala bixin camal waa kan ku xigo aan baranayna waxa waaye waa scale waxa waaye shay inaa weynaydo ama inaa yarayso waa labada mid waa shay yar ayaa weynaynay oo cabirkiisa ka weynaynay macnaha ama shay weynaay ayaa yareynay cabirkii originalka ka yareynay macnaha waxaan kaloo isla arki doonaa toolkan kale oo la yiraahdo offset wuxuu ku sameynaa line-kii uu ku copy gareynaa ama circle-kii wax parallel oo ku sameynaa tusaale ahaan line meel ku yaal line asaga la mid ah oo parallel kaaga dhiga hadana mid kale asaga la mid ah parallel ku sameynay sidoo kale curveska wuu ku sameynaa arcs-ka sidoo kale circles-ka sidoo kale waxaas oo dhan offset ku sameynaa laakiin waa in distance cayiman oo u dhaxeeyo inuu jiro offset-ka yacni shayga offset-ka dhehaysid oo reference-ga ah iyo midka kale hadda imaanayo distance u dhaxeeyo oo offset distance la waa inaad taqaano waa inaad gelisaa soo mid kasta kan oo kale hadda marka halkaan ka soo dooran kartaa wuxuu kale leeyahay str leeyahay macnaha stretch somaha str leedahay. Okay, str marka muxuu yaqaanaa stretch ka soc marka sc na muxuu yaqaanaa scale. Okay, comment iskan iska sii baro scale soo yaqaan maxana marka offset oo leeyahay bas offset kaas uu yaqaanaa soo marka mid ajacaysa adiga hadda marka anaga tusaale ahaan wax yar waxaan ku cabiraa marka si aan isku faahno di oo distance-ga ah waxa rabaa kan iyo ma cabirna la ka fiirina meeqa waa 89.9 something soo ma soo marka fiir waa dheereynayna fiir marka waxa leenahay stretch aan soo dooranayna wuxuu yiri select object shayga aad dheereynayso dooro soo marka dhinaca aad ka dheereynayso dooranay. Okay, hadda dhinacaas oo waxaan doortay oo midigta ah kadib waxa leeyahay enter haye base point-ga iyo cadayda halka aad ka qabanayso xagaan waa leeyahay. Okay, waa qabtay oo ujeedaa waa jiiday indhaha uga jeedaa inuu dheeraaday di hadda dhaw markaan waxa ujeedaa 89.92 oo haadana 200 iyo ka badan waa soo marka control z ka soo laaba hadda isla fahnay soo marka hadii str isticmaalaysidna waa tabtaas oo kale hadda marka dhinacan kale ka dheereynayna fiiriya shaygu wada dooranaa laakiin hadba dhinaca aadidu uu ku xiran tahay u fiirsan marka enter base point-ga kan waa qabo waa ujeedaa. Okay, marka dhinacaas kale ma dhaqaaqin soo marka waxa u maleynaa inaad fahantay stretch-ka marka kan oo kale hadda ku sameynayna u fiirso hadda meeshan tusaale ahaan meel albaab camal waaye waa ugu yartahay tusaale ahaan maalan marka waxaan sameynaa fiiriya halkaan dhinac bis raba inaan soo dhaweeyo waxaan sameynaa stretch aan dooranaa hay dhinac raba inaan soo dhaweeyo dhinacaan. Okay, enter halkaan ka qabo waa kaas waa ujeedaa saas u soo dhaweeyo. Okay, waxaan rabaa marka hadana labada afba ayagoo saana inaan dhinacan kala geeyaa rabaa ayadana. Okay, soo dooro select object ku dhahay labada af markaan wada dooro. Okay, labada af wada dooro enter dhinaca kamid ah la soo qabo waa ujeedaa marka fiiriya xagaanan keenaa. Okay, waa ila fahantaa umalena waxaan kala rabnaa mid kala rabnaa marka oo stretch lahayd macni multiple sidee ashyaa badan tusaale ahaan hadda kan oo kale waxa sameeysaa copy control c hadana control c kale saddex shay hadda meeshan taal. Okay, saddexdana waxa rabaa line-kan xogaa dhinacan u soo dheer gacantan dheer ina dib u wada celiya rabaa soo marka fiiri comment cusub ku baraa waxa lahaa mstr leedahay. Okay, multiple stretch lahaa dooro marka doorato marka maxaa u dooranay waxa sameyn dhinacan waa dhinacan raba inaad doorto mugta inta istaagay waa qabanay waa goobaabin camal rectangle camal u dooranay. Okay, uu i celi hadana inta istaaga kaliya ku siina ma sii deynay waa jiida. Okay, marka wada meesha ii wada doormo aan ku sii deynaa. Okay, kana sidoo kale waa qabanaa waa jiida. Okay, click ayaan siinaa. Okay, soo marka saddexdaas raba enter ayaan leeyahay marka base-ka qabo marka base-ka qabo uu yiri waa qabtay. Okay, waa jiida gadaala u laabanaa halkana click ku siinaa
maxay u jeedaa marka saddexdaba inay wada yeesheen halkaas marka waxaa uga baxaa stretch intaas waa muhiim waa kugu filan tahay sida aan rajeynayo waxaana gelisaa marka kan xigo oo ah scale waxaa waaye shay yaraay in la weyneeyo ama shay weynaa in la yareeyo tusaale ahaan hadda kan oo kale isoo qaad control c e dheh inta ii keen waxaa rabaa marka shaygan inaa weyneeyo oo laba jibaarkiisa aa sameeyo maxaa sameynaa marka intaa scale kasoo dooranaya objectiga dooro waa doortay intaan leeyahay wuxuu leeyahay marka base pointiga dooro base pointiga waa kana leeyahay hay marka muxuu leeyahay specify scale factor sheego ana marka wax kale ma dhahay laba jibaarkiis leewa times 2 ida asaga enter dheh okay laba shaygan laba jibaarkiis waa kana hay isla shaygana marka waxa sameynaa halfkiis marka waxa leeyahay sc markaan dheh command ahaan u adeegso si oo xogaa practice garino waa dooranay objectiga dooro enter dheh sorry hal mar sc dheh no door select objective dhah waa kanaha enter ii dheh base pointiga waa kanaha marka muxuu dhahay scale factor ku dhufo midhahoyo waxaa leeyahay 0.5 iigu dhufo markaan hay maxaa marka shayga halkan i yaalo oo referencega ah mar doublekiis waa kanaha laba jibaarkiis marna halfkiis waa kan okay soo marka sidaas oo kale loo sameeyo waxaa jirta marka option kale oo reference ah scale-ka مثلا marka tusaale ahaan hadda waxa waaye kan iga tir ama iska dhaaf waxa sameeysaa waxaan sameynaynaa kana iska tiraa marka iska tiro waxaan sameynaa kan ayaa waxaan ka dhiganaa reference oo waxaan rabaa kan inaa kan la ekeysiiyo okay kana yareena macnaha kana scale ahaan u yareena anoo tixraac ka dhiganaa midkan sidee loo sameeyaa marka sidoo kale scale soo dooro scale marka soo dooro shayga ay yareenaay kan waay sax dooro enter dheh marka muxuu dhahay marka specify base point ali dhahay sax barta aad yani base ka ku ah ii sheego ku yiri base point kaada xagee ka dooran macnaha afarta corner macnaha markaan ku kadsoomin maskaxda ku hay markaan shay reference ah ayaa rabtaa inaad tixraacdo macnaha oo aad u ekeysiido shay kale okay marka maxaa la sameeyaa base pointiga shayga la bedelayo ma ahane referencega ka dooranay base pointiga dhinaca aad dooranaysan iska ilaali hadda aniga dhinacaas hoosaan doortay hadhowna konkoraad doona insha Allah marka la ekeysiina base pointiga waa kana leeyahay okay kadib maxaan dooranaa optionka reference ah reference marka doorto marka yaa u tagaa shayga referencega ahay xagaan aan dooranaa hadana second pointiga aan dooranaa waa doortay kadib marka maxaa sameynaa si aan u ekeysiiyaa database pointiga intuu ay Soomaa kanaan dooranaa marka soo marka labadan shay waa isku scale mid kana la soo bedelay oo kan oo reference ah ayaan ka tixraacnay oo aan yani aan halkaas ayaan ka duulna macna marka horeba ina fahantan waa rajeena asagana okay soo waxa malan scale kana in la fahmo ayaa rajeena waxa u gudbayna marka offsetka marka line oo kala soo qaadanayna tusaale ahaan wuxuu ku sameeynaa line kan lee parallel ah offset line kaliya ma ahane circle na noo soo qaad okay circle na meesha hanoo yaal waxa sameeynaa marka offset aan leenahay kan oo kala hadda 10 offset leh okay offset oo 10 fiiriya offset oo aan doortay waa kanaha enter dhehe ama click dhehe kadib wuxuu kula cabir gali waxa iska leeyahay aniga 10 ii gali enter aan leeyahay mugta wuxuu ku leeyahay marka select object to offset okay shayga dooro si offset loogu sameeyo shay parallel oo ku sameeyna oo copy-giisa okay click marka ku siiyo maxay u jeedaa wuxuu ii sameeyay marka meesha hal mid ogow fiiriya di de distance-ga يعني offset ka hada aan gelinay meesha waa kana bartaan ilaa bartaan meeqa u dhaxeeyo 10 saas waa marka u fiirso marka hadana offset marka la leeyahay 10 kiya ku jiro inta aan leeyahay shaygaana doorana maxaa sameeyna 10 kale mujida hadda marka fiiriya hadana kanaan doortay marka waxa sameeyna marka ku dhuftay multiple aan leeyahay ayagoo badan sameey kartaa fiiri multiple marka doortay marka waxa sameeyna dhinaca offset ku dheysida ku xiran tahay dhinacan kor aan aado hadaa inta aado halkan hoos soo aada marka waxa sameeyna kor le click ugu siinay okay hoos hadaa rabto sidoo kale inta mid kale waxa in baraa marka hadda command a isticmaasho ama tool a isticmaalaysid hadaa rabto command-iga ugu dambeeyay isticmaasho inaad soo celiso hadaa rabto space la dhahaa space hadaa dhahdo maxaa kugu jiro offset hadaa cabirka wax ka bedelaysid waa ka bedel hadaa 10 ku udeysana 10 kaada la udeysay kadib hadana inta ku dhufanay marka inta marka sii dhahay waa hadda hoos hadaa soo aadisaas waa kadib laakiin multiple sii doorana okay hoos soo aada waa ka mujeeda markaan hoos soo marka ayadana saasay muhiim u tahay
offset kana hadda waa isla garanay oo waa laga soo gaabiyaa waxa kale oo aan u maleynaa inaan yara hilmaamay markii stretchka aan maraynay stretchka qaabka loo sameeyo waa aragnay qaab kale oo iska easy oo fududaa jiro oo markaa ku dhufato shayga oo kale wuxuu leeyahay shayga points uu leeyahay okay meelahan oo kale hadda stretch vertex waa geeska waa okay dhinacan hadda isu istaagtina maxaa ku qoran stretch okay stretch kasta qabato oo jiido ayadana way yani waa stretch waa okay hadaati waa hilmaamay haddaan dareemay soo marka waxaan u maleynaa hadda wax kaloo naga dhiman inaysan jirin saddexdii tuulo aan baranayna sidaasaan ku baranay cashirkeen halkaas aan kusoo gabagabaynaynaa waxaan noo baran lagjarkan kan xiga oo ah lagjar 9 insha allah